Hello. Nice to meet you. waxa uu diiday inuu ka qayb galo aaska boqorada Ingiriiska oo dunida oo dhan ay shalay indhaha ku haysay balse taa bedelkeeda waxa uu waqti la qaatay oo muuqaal ka duubanaya wiil yar oo dhalinyaro ah oo suuqyada magaalada Istanbul ku wareejiya suumanka iyo boorsooyinka alaabaha jeebka la gashto lagu rito ninka aan ka hadlayo waa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxaan doonayaa inaan kula wadaago sheekada cajiibka ah ee maanta ay hadal hayaan warbaahinta Turkiga iyo caalamka oo dhan adigana waxaan ka codsanayaa muuqaalkan like saar oo si share garay lana wadaag asxaabtaada si ay uga faa'iideystaan qisadan quruxda badan madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waa wada garanaynaa dhamaanteen waa madaxweynaha wadanka Turkiga ama jamhuuriyadda Turkida haddii aan si kale u dhigo ninkan waxa casuumaad uga timid safaaradda Ingiriiska ee dalka Turkiga waxaana ay ka codsadeen inuu ka qayb galo aaska boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay Queen Elizabeth balse waxa uu kala hor yimid diidmo weyn isaga oo ku yiri ma doonayo qof aan muslim ahayn oo geeriyooday inaan tacsidiisa ka qayb galo taa bedelkeeda madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxa uu go'aansaday inuu waqti la qaato bulshada reer Istanbul gaar ahaan waxa uu waqti la qaadanayaa wiil dhalinyaro ah oo madow ah oo ka soo jeeda wadanka Burkina Faso kaas oo suuqyada magaalada Istanbul ku wareejiya suumanka iyo boorsooyinka dharka alaabaha lagu rito dabadeedna jeebka la gashto madaxweyne Erdogan wiilkan intuu u yimaado ayuu waliba waxa uu la fadhiisanayaa maqaayad ay dadka tabarta yar wax ka cunaan oo ku taalo Istanbul isaga oo waliba ku dhahayo duubo muuqaalka aad doonaysid markaas uu wiilku intuu u yimaado madaxweynaha oo waliba mobilkiisa gacanta isagoo ku haysta ayuu selfie ka duubaya muuqaal markaas wuxuu leeyahay reer Burkina Faso waan idin salaamay waxaan idin wadaa maanta madaxweynaha adduunka ugu wanaagsan hadda sidaas oo af Ingiriisi ayuu sidaas ku leeyahay waxaan doonayaa marka hore inaan ku daawasiyo muuqaalka iyo sheekada dhex martay wiilkaas dhalinyarada ah iyo madaxweyne Erdogan oo warbaahinta Turkiga iyo tan adduunka oo dhan ay maanta hadal haysto ila daawo muuqaalka Hello. Nice to meet you. People from Burkina Faso. That's the best president in the world. runtii waa sheeko cajiib ah oo aad iyo aad loo hadal hayo madaxweynayaal badan iyo ra'iisul wasaareyaal badan oo adduunka ka socda ayaa isku garbinaya shalay inay ka qayb galaan aaska boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay Queen Elizabeth madaxda halkaas si tagtay waxa kamid ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madax badan oo wadamada Afrika ka socda oo ku jiro madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaas oo isagu laftirkiisa goobjoog ka ahaa shalay tacsiid loo sameeyay boqoradii Ingiriiska ee geeriyootay Queen Elizabeth hasaate Rajab Tayyip Erdogan waa uu diiday waliba isagoo casuumaad rasmi ah xafiiskiisa loogu keenay oo dawladda UK uga timid ayuu haddana gaashaanka u daruuray waxaana uu sheegay inaanu doonaynin inuu ka qayb galo aad iyo aad baad u mahadsan tahay haddii uu muuqaalkan ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa like saar oo share garay lana wadaaga saxaabtaada waa mahadsantiin saaxiibayaal